بلده هلك لو قدر لقبتنا وحاول يوقف العسى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داوديال وحن هودا إذن كلينا هاي أكلا وناكسن كاني ومقال ذي هورين أصباهين كدوان هاسياتي مقال كان أياه عد سر لغدوي أبوان داهر عبد الله علسو حليم جواز ما قداس لك عصوتها oo inta badan bulshada ay u yaqiinaan nin abwaan oo baraha bulshada si weyn looga bartay daahir cabdulle calasow ayaa nin markaasina inta badan fanaaniinta heesooyin kala duwan u sameeya si ay fariintooda u gudbiyaan muddooyinkan dambe ayaa baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday isla markaana lagu soo shaaciyay cod sira oo laga duubay daahir codka ayaa isla markaa cod markii aad maqasho amba kaag iyo yaab ku gelinayo laakiin ma yihiin cod sax ah oo isla markaana xaqiiq ahi haddaba daawada si aad xaqiiqda mar walbo aad u aragto ama aad u maqasho like saar oo sheel garay asxaabtaadu ha gaaraan حمار ودير وركحيري حوليقا وسعودي حوقت لاقا قلدو dadku ma xabisno xawalku ma jire warkayo xogtaan ma xaqiijisan laga xamaaru diiray warkaxiiray xawliga uu socday xogta laga qaldo dadku ma xabisno xawalku ma jire warkayo xogtaan ma xaqiijisan aan ku bilaaway daahir cabdulle calasow ayaa waayadan dambe waxaa baraha bulshada qabsaday sida facebookyada iyo youtubeyada sawiraantiisii oo isla markaana la soo hagaajiyay dabadeedna la saaray fanaanada xaliimo guhaad iyo sidoo kale fanaanada farxiyo fiska codkan sirta ayaa sida la sheegay waxaa duubtay gabar fanaanada oo ku dhaqan wadanka isla markaa oo aanan jeclayn in la sheego halkii ay ku sugan tahay codka ayaa wuxuu u dhacayay sidan waxaa isla markaana daahir uu sheegayaa in gabdhaha fanaaniinta ay yihiin kuwa isla markaana ku dhaqmo waxyaabo aan wanaagsaneyn hadallo saxi wada laakiin ma aynu jeclaysan inaan si sax hadalladaasi oo aan idinku soo gudbin halkan maadaama aanan sharafta warbaahintu aanan sidaasi qabin waxaan sameynay dabagal dheeraad ah si aan u ogaano xaqiiqda dhabta ah maadaama warar dheeraad la dhaxmarayo baraha bulshada isla markaana waxaan ogaanay in qofka laga been abuuran karo isla markaana la bedeli karo codkiisii oo la sameyn karo codkiisa oo kale u shabaha hase ahaatee waxaan isla markaan inta badan inuu ogaanay in codkan ay ku hadlayaan gabadha fanaanada iyo daahir calasow uusan asagu ahayn daahir cabdulle calasow oo ah nin abwaan oo inta badan bulshada ay u yaqiinaan sida dabagalka dheeraadka oo aynu ku ogaanay si warkan aan u xaqiijino inuu yahay nin abwaan fanaaniintu heesooyin u sameeya dhanka kalena wuxuu yahay nin isla markaana baraha bulshada website iyo facebookyada ku cambaareysto mas'uuliyiinta xilka ka hayo dowladda federaalka kuwaasi oo uu ku sheego inay yihiin kuwa aanan wax qaban karin inkastoo inta badan uu ku hileeyay in uu adeegsado eryo qabaacila daahir cabdulle calasow ma aynu garanayno weligeena ma aynu kulmin laakiin waxaynu ogaanay warka iyo xaqiiqda dhabta ahi arrinkani haddii aad maqasho qofka in muuqaalkiisii ama sawirkiisii in la jaro kadibna la saaro sawir kale sidaasi isla markaana lagu soo shaaciyo baraha bulshada maadaama sawiraantiisa la soo saaray sawiro munaasab aanu ahayn haddana dhanka kale way dhici kartaa in qofku isla markaana la sameeyo in codkiisii
cod u yar shabaha la sameeyo dabadeedna waxyaabo xun oo kale isagoo ku hadlayo la soo dhigo baraha bulshada. wararkan ee baraha bulshada la isla dhaxmarayo in Daahir Cabdul Calasow uu sharaf ka meel ka dhaco isla markaana ooga dhacay gabdhaha fanaaniinta ahi sida Farxiyo Fiska, Xaliimo Guhaad, Nasteexi Indho iyo kuwa kale. wasida isla markaana codadka lagu dheehanayo ama codadka laga maqlayo inay ku jiraan fanaaniintaasi. ugu dambeyntii ma ahan wararkan warar saxa, waa kuwa been abuura oo isla markaa lagu soo shaaciyay baraha bulshada. inkastoo inagu oola jeedin in aan xogta dhabta aynu daboolno, waxaase naga xaqiiqa ah inaan warka saxda idin soo gudbino. daawade waad ku mahadsantahay daawashadaadii. halkani waa Live News Somali TV. magacaygu waa Maxamuud Awadaacan. يا حقيري برشاد وحلدون نادية كديقي حكر يا كويري حرباحة